السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا موقال عصب iyo channelka Jacaylo official iyo mataanaha show meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay maalinta idin wacnaato iyo waqti walba aad joogtaan idin wacnaato maanta muuqaalkeena waxaan ugu talagalnay inaan reaction ka bixino hees cusub oo la soo geliyay YouTube waqal production YouTube kana yiraahdo runtii heestan waxaa qaada fanaanka Suldaan Seyraar Bugaad reer Jigjiga waa hees aad iyo aad u mac waa hees dhaaftay heesta waxaa loogu magac daray qalanjo ilaa hadda youtuber badan ayaan arkay oo reaction ka bixiyay heesta balse ma badna wali dadka si fiican uma arag heestan waxay matalaysaa oo ay ka hadlaysaa qof riyoonaya oo isagoo jiifariya intuu ku baxay qalbigiisa meel kale riyadaasi ay geysay kadibna uu gabar aad iyo aad u qurxoon geey uu ku mitaalay uu markaasi la haasaawayo amaanayo la sheekeysanayo kadibna heesta markay dhamaato muuqaalkii waxaa lagu tusayaa isagoo riyadii dib u soo laabatay oo meel buul ah ama buush ah uu jiifo kadibna la canaananayo leeyahay waryaa kac oo arigii raac marka heestan bilaabanaynaa heesta waxaa qaada Suldaan Seyraar Bugaad waxaa la yiraahdaa qalanjo nala socda waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalka aad share gareysaan like-na aad siisaan comment-na aad ka bixisaan sidoo kalena subscribe-ka aad siisaan waan bilaabanaynaa sida aan idin sheegay heesta waxa ay ka bilaabanaysaa fanaanka Suldaan oo geed ood ah uu saas u soo jiidayo meel keen ah oo duur ah cidna aanan joogin uu ku bilaabay heesta reer miyi buu matalayaa arigii ayaa meesha codkooda laga maqlayaa oo ka qaylinaya isagina oodii saas u soo jiidaya marka faashkiina halkaas uu saaran yahay mise masaarta qofba sidoo u yaqaano waan soconaynaa Suldaan xagu u wada marka oodan talow waayahay buulkii uu sii galayaa marka calaashan gurigiisii aqal Soomaaliga ahaa ee buushka ayuu sii galayaa oodii uu soo jiiday meeshii uu soo dhaweeyay kadibna buushkii uu sii galayaa faashkiina halkaas uu saaran yahay wuxuu wataa dhaqankii lagu yaqaanay dadka reer miyiga ah go'ii weynaa macawistii fanaanadii iyo faashkii wixii lagu yaqaanay reer miyiga ayuu wataa aad iyo aad muuqaalka ugu horeyn muuqaalka qaybta koowaad markaad aragtidba waxaad jeclaanaysaa waxa soo socda inay yihiin wax fiican nala socda marka waayahay ninka wuu soo daalay aqal Soomaaliga ku soo laabtay gurigiisa ahaa wuu seexday go'ii weynaa ayuu hugsaday wuu isdaboolay macnaa wuu istuuray riyada hadday bilaabanaysaa marka intaan hordhaca heesta ayay ahayd isagoo oodii soo jiidayo faashkii soo wato kadibna meeshii gurigii hortiisu saas soo dhigayaa kadibna qolkiisu galayaa oo aqal Soomaaliga yahaa uu seexanayaa riyadii ayaa hadda bilaabanaysa marka qof hadduu seexdo kulay wuu riyoonayaa wax walba ku riyoonayaa mar isagoo Yurub jooga oo meel fiican uu jooga qof nooc walba ayay riyada ku tustaa marka Suldaan riyada waxay tusayso aan aragno marka wuu baxay isla markiiba muuqaalkii wuu isbedelay meeshii Suldaan markii hore uu joogay hadda ma joogo riyadii ayaa meel kala geysay magaalo qurxoon malaha waxaan u maleynayaa inay Jigjiga tahay heesta ayaa hadda bilaabanaysa marka waa heesta qalanjo heesta gabadha lagu mithaalayo oo Suldaanna uu ku riyoonayo waa gabar aad iyo aad u qurxoon ma sha Allah aad iyo aad bay u qurxoon tahay gabadha heesta erayadeeda iyo laxankaba waxaa isku darsaday abwaan la yiraahdo dab jacayl muusiga waxaa garaacay Axmed Weli Ibraahim Furunle erayadii iyo laxankana dab jacayl baa isagana saaray heesta codkiina waa Suldaan Seyraar gabadhiina waa
واتن أنا ينتسيو أو إذا أدكو قرحون أو جيدي يو أمانة صوصعته ويقال ترى بهذا السيء أنا أرجع مركا سلطان ريو كجرا وجي فماشي سوجي فما هي هلك مجوجو gabadhii uu la taagan yahay geenya sida aan ku sheegayba geenya ayuu ku miitaalayaa gabadha isla geenyadiina saas uu hayaa gabadha iyo geenyada way isku dhigmaan gabar hadii la amaanana waxa lagu amaano ay jeceshahay wax weeyaan geenya tahay geenya dumar baa tahay geenya saan baa tahay qortaada dheer saan weeyaan caadi ma aha gob qurashayo garqaayalo qayrkeed hablaha qiimo dhaaftayo aan qulubta xumo kuba qaadanayn qoftan kala yara waan arkaynaa wallahi anaaba dhaartay waan arkaynaa sultaano aad iyo aad gabadhu way qurxoon tahay waan arkaynaa oo ummadan baa arkaysa heestan hees dhaaftay inay tahayna waan u wada jeednaa oo waan arnaa qof qurayshiyo gaari dumar iyo waxa uu ku amaanayo dhammaan way u qalantaan gob qurashayo garqaayalo qayrkeed hablaha qiimo dhaaftayo qayrkeed hablaha qiimo way dhaaftay adaaba dhahaya anagana waan dhahaynaa oo qayrkeed hablaha qiimo way dhaaftay oo way ka qiimo sareysaa aad iyo aad waan aragnaa uma qaadaysa gaale qoftan arag way qof wanaagsan oo qalbi saafi leh eegmadeeda ayaaba ku qancinaysa gabadha markay saas ku soo eegto ama saan ay ku eegto caadi ma aha indhaheeda iyo dhabankeeda iyo qoorteeda iyo wax lagu amaanayo dhammaan way wadataa sultaano gabadhan halkeed ka soo heshay jigjigay ku nooshahay malaha waa intaasina waa kaftan waa ha u bixina waayahay heestan ku sii soconaynaa markaa عقب وينيديو لو قيح كبر يا ولي بقحر قفتن كالا يرا بيشكي هوري قلعدي ugu horeysay kaalay arag buu ku soo gabagabeeyay waan aragnay tii labaadna kibir kuma jiro qob weyne kuma jirto isla weyne kuma jirto kaalay qoftan arag ayuu hadana mar labaad ku soo gabagabeeyay qalcadii koowaad kaalay arag qalcadii labaadna kaalay arag aad iyo aad قف وناكسنو قلبي سافيو عقب وينيديو لو قيح كبر يا ولي بقحر قفتن كالا يرا قدي ساقديو وانق waayahay qudhay saaqday oo waan qalanahay qudhay saaqday oo waan qalanahay gabadhii baa saaqday ninkan way dhax gashay kadibna wuu qalan yahayba macnaha dhakhtar miyaa gabadha talow oo ninkan ma dhaawac baa ma la qalay waayahay qorraxdan ifta ka shaqaadato qiraygu rideeqo qorraxdan ifaysa ka shaqaadatayo kala yara qorraxdan ifaysa macnaha qorraxdii ku miitaalayba gabadhan ifaysa qudda qaadatayo qoftan kale arag muuqaalka waqtiyada la duubayna waa waqtiyo kala duwan waa jawiga waa xilliyada uu fiican yahay ayaa la duubay muuqaalka xilli habeen ah xilli gabaldhac oo qalbihii ay tahay xilli subax ay tahay meelaha uu qurxoon lagu duubay habeenkii oo kale dab baa la shiday oo loofkii oo kale loo sameeyay kadibna haddana muuqaalka galabtii oo kale baddii ayaa lagu duubayaa marka muuqaalka isagaaba kala qurxoon waqal youtube-kan la yiraahdo waa youtube-ka hadda aan dhihi karo youtuberada Soomaalida isaga ugu horeeya ayaan dhihi karaa markii la fiiriyo tayada muuqaaladooda markii la fiiriyo daawashada views-ka ee dadka daawanaya markii la fiiriyo subscribe-ka dadka ku xiran youtube-ka like-ta caadi ma ahan si socda ayaan idin leeyahay waqal haddaad tihiin شذن بلارك قروح ذا أرك وقياس بلارك قاب كذا أرك ورتن دل بلارك وصل كذا أرك وفتن كالا يرا قلعدي سدحنا دمان كالا أرك بقصو قبقبي واسدانا كالا بالأرك قورت هذا دير كالا بالأرك قصل كذا وكالا بالأرك واسدانا كالا بالأرك أرك هاستي دمان ووضع أرك إلا قبر دي با وحيت هاي قبر لا أركوذك قبر إلا أركوذا أمضا أو أركتي هذا با أد أخرى مركب وأنا وضع أركينا سلطان واسي وناكسن شذن بلارك قروح ذا أرك وقياس بلارك قاب كذا أرك ورتن دل بلارك وصل كذا أرك وفتن كالا يرا
qalanjadan bal arag quruxdeeda arag qalanjadan bal arag quruxdeeda bal arag qoorteeda bal arag qosolkeeda qurxoon bal arag oo kaalay bal arag gabadhan waayahay sultaan oo qiyaas bal arag qaabkeeda arag qortan dheel bal arag qosolkeeda arag qofkan kala yaraa beejkii hore ayaa heesta meesha ku soo ilaatay kaalay bal arag bay ku soo ilaatay gabadhii wuu arkooday heestii buu ku ammaanayaa gabadhu way qurxoon tahay meelaha uu ku ammaanayo meelaha heesta lagu sameynayo kaalay bal arag meel walba oo heesta lagu sameeyay gabadha suldaan erayada laxanka musiga dhammaan kale wax weeyaan bal arag weeyaan marka qaybtii hore ee beejkii heesta beejkii ugu horeeyay meesha ayuu ku soo ilaaday dhammaan saaxiibadana daawanayay waxaan idinkaga mahadcelinayaa daqiiqadaha aad na siiseen ee daawashada aad nagu saacideen intaan muuqaalka xiga dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinka codsanayaa in aad subscribe iyo like iyo comment aad ka bixisaan YouTube-ka